gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland barasaabka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta kulan kula yeeshay howlka jaamacadda Burco konton qof oo ku guuleystay kaalmihii ka banaana shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha jaamacadda Burco oo la hadlay shaqaalaha si cusub ayaa ku hambaliyay guusha ay gaadheen waxayna ugu baaqeen inay gutaan waajibaadka loo igmado. kontonkiina soo baxay inaad tihiin qof ma tiidin imanka waa kontonkii gobolka Togdheer masilay farxad bay noo tahay waa idin tahnaydeynayna soo dhawaada ardayda guuleysatay waan hambalyeynaya maanta laga bilaabo waxaad noqoteen shaqaale kamida shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer waxa la idin ka rabaa wax kasta oo qof shaqaale oo cusub looga baahan yahay in qof waliba meeshii la geeyay hay'adda la geeyay uu la tago dadaalkii dhalinyaranimo dadaalkii aqooneed maskaxdii fiicneed oo halka ku soo gaaray. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmarke Axmed Maxamed Geelle oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay shaqaalahani cusub isagoona halkaasi fariimo la xiriira hawl maalmeedkooda uga soo jeediyay. dhammaan guuleystayaasha qiimaha badan ee maanta saaka halkan fadhiya saaka waxaad hesheen digreetada ugu qiimaha badan ee qof lagu magacaabo digreetooyinka kale oo dhan markii la doonaa lagaala noqon ama waa wuxuun si kale kugu soo galay laakiin inaad qalinkaaga ku soo baxdo maanta halka adiga iyo waalidka magacaaga ku dhagan yahay waa digreeto runtii qiimo badan iyo xasuus noloshaada ku reebi doonta inta dawladda u shaqeynayso waxay noqon doontaa mid xasuus iyo runtii kugu dhalisay inaad adiguna ummadaada haddaad cadaalad ku soo baxday adiguna cadaalad ugu shaqeyso oo dadkaagu ku dhaxeeyaan oo aad nin nasiib ku riixin laakiin aad adeeg wanaagsan ummadda siiso waajibkii dawladnimadu way ka soo baxday waajibka adigu kugu soo wareegaya inaad adeeg fiican ummadda siiso dhammaanteen waxaynu noqonaynaa adeegayaasha gobolka Togdheer waxa la doonayaa in dhexda loo xidho in goboladu dadaalka iyo runtii horumarka iyo aqoonyahanku inuu gobolka ku xasilo oo gobolada Soomaaliland dhammaantood wada iftiimaan si aanu muwaadinka gobolka nool ugu baahanayno meel kale u safro si uu adeegii dawladnimada u soo helo muwaadiniinta maanta ku guuleystay halkan waxay noqon doonaan adeegayaal ka shaqeeya oo u shaqeeya gobolka Togdheer iyo hadii loo baado xarumaha dawladda. gabagabadina waxa uu gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu uu kaararka aqoonsiga shaqaalaha dawladda ee ka howlgala gobolka Togdheer ku wareejiyay barasaabka gobolka Togdheer iyo suduwayaasha laamaha dawladda ee gobolkani. Shaafici Maxamed Ibrahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.